kusoo koobaya insha allahu tacaala qiso aad ii cajabisay loona la doonaya qofka muslimka inuu ku waantoobo waxna ka qaato sheikh la yidhaahdo almubaarak oo waxa weeye dhalay caalim weyn oo culimadii muslimiinta ka mid ah cabdullahi ibn mubaarak ayaa wuxuu ahaa addoon buu ahaa la leeyahay waxaa dhacday maalintii dambe isagoo beertii falaya ayaa ninkii beerta iska lahaa isagoo muddo badan ka shaqaynaya 10 sano ka badan iyo maalintii dambe wuxuu ka codsaday xabad rumaana inuu keeno dabeedna markuu siri cun xabadii buu arkay inay dhanaan tahay uu ku celiyay wuxuu yidhi xabad labaad iga soo goo mid labaad buu doonay inuu soo gooyo dabeedna markuu tii labaad u keenay buu arkay inay tii labaadna dhanaan tahay wuxuu yidhi xabad saddexaad ii keen tii saddexaad buu haddana u keenay rumaanta ahayd wuxuu arkay inay qaydhin tahay oo aanay bislaan ninkii sayidka ahaa ee iska lahaa intuu xanaaqay buu ku yidhi beerta intaasoo sanaad ka shaqaynaysa dhowr iyo 10 sano kala garan maysid xabadda rumaanka ee bislaatay iyo ta aan bislaan siday ku dhacday aad buu u canaantay wuxuu yidhi haddaanan weligayba cunin saan ku kala gartaa weligay afkaa maan saarin buuri wuxuu yidhi adoo ka shaqaynaya sidaad u cuni weyday wuxuu yidhi imaad fasaxin inaan cuno dhowr iyo 10 sano beertaa ka shaqaynayay xabad rumaana inuu ka cuno wuxuu ka sugayay ninkii lahaa inuu fasax qaato iskama cunay xalaal miradka markuu sameeyey ninkii waa xoreeyey hantina waa siiyey inantiisina waa u dhis ninka noocaas ee addoonka ahaa ee beerta sidaa u ilaaliyey alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inuu ka dhasho caalim weyn oo culimadii muslimiinta ugu waaweynaa oo la yidhaahda cabdullaahi ibn mubaarak oo culimmadu markay ka hadlayaan waxa weeye ay yidhaahdeen sida ismaaciil ibn abi cayaash uu tilmaamayo u malayn maayo dhaqan wanaagsan dabeecad wanaagsan oo alla u abuuro lagu janno tegayo ilaa ilaahay wuxuu ku abuuray ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibn mubaarak ibnu xajar markuu ka hadlayey noloshiisa uu ka hadlayey wuxuu ku soo koobay jumicat fiihi khisaalu lkhayr ninkaa waxaa lagu kulmiye wanaag oo dhan baa lagu kulmiyey culimmadu intay isu yimaadaan kuwii xilligiisa joogay ayaa waxay ku subcinayeen ninkaa wanaaggiisa ayay ku subcinayeen ninka noocaasa sidaa u wanaagsanaa ee ilaa hadda laga sheekeeyo waxaa noloshiisu ay ku bilaabatay qisada aan idiin sheegay aabbihii iyo hooyadii sidaa isugu yimaadeen oo ku salaysan xalaal